السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو هذا أفلح أونلاين هالكاد نقدر سنسان وشبكة aflaxonline.com وكبرتان برشدة لغة أفكا إنجليزية يدو مركا ليدين كترجميو أفاد فهمي كرتان أفكينا صوماليغا هدي أضبا حانتاينا نلسو حريتو وحنا نلسو حريري كرتا إيميل كيغا أفكيغا @gmail.com. اوكي هذا انو قدبنو قيبتا 10 يدا مانتا 10 هذا ان ربنو انو كهدلنو waxa weeye waxa loo yaqaano past tense oo ah wax waqtigiisa la soo dhaafay sida 10kii horeba aanu ku baranay past tense ka waxa la soo isticmaala marka aad ka hadlaysid wax waqtigoodu soo dhaafay qaybtana waxa weeye jumlado ah xilligooda la joogo present tense waxaana la doonayaa inaad ka dhigtid past tense hadii la haydmo waxa weeye write waxa dib u qortaa the following sentences jumladaha soo socda to create saw abuurtid the past tense kuwa waqtigooda la soo dhaafay by changing adigoo bedelaya present tense ka kuwa waqtigooda jooga adoo ku bedelaya oo ah verb to be ga past tense form qaab waqtigooda kuwa la soo dhaafay haddaba jumladahan simple present aynu bilowno waxa lagu yiri he is my roommate isagu waa jaalkay oo guriga ayuu ila degan yahay hadii aad ka dhigaysid wax waqtigooda la soo dhaafay sideed uga dhigi kartaa waxa weeye he was my roommate waxa uu ahaa jaalkay oo guriga ayuu ila deganaa waa wax waqtigooda la soo dhaafay isagu waxa uu ila deganaa guriga ayuu ila deganaa. It is in my pocket waxay ku jiraa jeebkayga hadii aad rabtid inaad ka dhigtid wax la soo dhaafay maxaad oran kartaa it was in my pocket wuxuu ku jiray jeebkayga waa wax waqtigooda la soo dhaafay. jumlada 9 eegno the snake masku is in the garden waxa uu ku jiraa beerta masku waxa uu ku jiraa beerta nasashada marka iyada uu ku jira haduu hore ugu jiro laakiin uusan ku jirin maxaad leedahay the snake masku was in the garden waxa uu ku jiray beerta hadda kuma jiro laakiin waxaad leedahay uu ku jiray masku wuxuu ku jiray beerta nasashada. The diapers are in the bag and xafaayadaha caruurta loogu nadiifiyo waxay ku jiraan boorsada hadii ay ku jireen xilli hore ay ku jireen laakiin hadda ayaan ku jirin maxaa oranaysaa the diapers were in the bag daybaradu waxa ay ku jireen boorsada ama xafaayaduhu waxa ay ku jireen boorsada. Sahra is sick today Sahra maanta way xanuunsan tahay maanta hadii ay hore u xanuunsanay sida shalay maxaad oran kartaa Sahra was sick yesterday Sahra way xanuunsanayd shalayto oo waa wax waqtigeeda la soo dhaafay. The kids are in the pool caruurtu waxa ay ku jiraan barkada biyaha the kids are in the pool caruurtu waxa ay ku jiraan barkada biyaha hadii ay hore ugu jireen oo hadda ay ku jireen maxay noqonaysaa the kids caruurtu were in the pool waxa ay ku jireen barkada the kids were in the pool caruurtu waxa ay ku jireen barkada biyaha hadda kuma jiraan laakiin way ku jireen. The bucket is full of minnows. The bucket is full of minnows. Waa minnows waxa la yiraahdaa kalluunka noociisa yaryar bucketna waxa weeye baaldiga waxa ka buuxa kalluun hadii waqti la soo dhaafay aad ka dhigi lahaydna maxaa noqon lahaa the bucket baaldiga was full of minnows baaldiga waxa ka buuxay kalluun yaryar ayaad leedahay. jumladan kalena aanu gudubno the washer and the dryer are in the laundry room mashiinka dharka dhaqa ama iyo kan qalajiya waxay ku jiraan qolka dhardhaqida laundry room waxa weeye qolku ay yaalaan mashiinka
qalabka lagu dhaqdo dharka. Washerna waa mashiinka loo isticmaalo in lagu dhaqdo dharka halka uu dryerkan uu ka yahay ka lagu qalajisto. Sidoo kalena washerka dishwasherna waa la jiraa oo isaga naftigiisa waxa lagu dhaqdaa weelka. aynu ka dhignay jumladaasi jumlad waqtigeedii la soo dhaafay waxa ay noqonaysaa the washer and the dryer were in the laundry room. mashiinka lagu dhaqo dharka iyo kan lagu qalajiyo waxa ay ku jireen meesha qolka dhaqida ama qolka dhaqida. I am in my office now. anigu waxaan ku jiraa xafiiskayga hadda. anigu waxaan ku jiraa xafiiskayga hadda. Okay, jumladii ku xigto waxay noqonaysaa I was in my office yesterday. maya waxaad ka dhigtaa I am in the office now. anigu waxaan ku jiraa xafiiska hadda. haddii aad ka dhigaysid wax la soo dhaafay maxaad oran kartaa I was in my office yesterday. I was in my office yesterday. waxaan joogay ama ku jiray gudihiisa ama aan joogay xafiiskayga shalayto. The pencil is on the floor. The pencil is on the floor. qalinka qoriga waxa uu saaran yahay dhulka. qalin qoriga waxa uu yaalaa ama uu saaran yahay dhulka. see baasta looga dhigi karaa the pencil was on the floor. qalin qorigu waxa uu saarnaa dhulka. qalin qoriga waxa uu yaalay ama uu saarnaa dhulka. Sorry I am late. waan ka xumahay waan dahsanahay. Sorry I am late. waan ka xumahay waan dahsanahay. haddii mid la soo dhaafay aad rabtid inaad ka dhigtid oo baasta waxay noqonaysaa sorry waan ka xumahay I was late. waan soo daahay. waan ka xumahay waan soo daahay. ta ku xigta the flowers are for Halima. ubaxa waxaa iska leh Halima. ubaxa waxaa iska leh Halima. baasti see looga dhigi karaa wax la soo dhaafay the flowers ubaxa were for Halima. The flowers were for Halima. ubaxyada ama ubaxa waxaa iska leh Halima. My grandmother is in the hospital. ayayday waxay ku jirtaa cusbitaalka. ayayday waxay ku jirtaa cusbitaalka oo hadda ayay ku jirtaa. hadday ku jirtay laakiin hadda ayaan ku jirno laga saaray maxaad oran kartaa my grandmother ayayday was in the hospital. waxay ku jirtay cusbitaalka. markaa kuma jirto laakiin way ku jirto markii hore. The exam is easy. imtixaanku waa fudud yahay. The exam is easy. imtixaankii baa dul fadhida waa lagu weydiiyey waxaa lagu yidhi how is the exam. imtixaanka sidee yahay waxaad leedahay the exam is easy. imtixaanku waa fudud yahay. okay imtixaankii adoo ka soo baxay baa lagu weydiiyey waxaad oran kartaa the exam was easy. imtixaanku waa uu fududaa. okay jumlada kale aan u gudubna the crust of the bread is very thick. The crust of the bread is very thick. inta sare ee rootiga aad ayay u adag tahay ama aad ayay ballaaran tahay. adeeg ba noqonaysa. crust waxaa la yidhaahdaa inta sare ee qolofka ah ee haddii aad loo dubo rootiga adkaata ayaa la yidhaahdaa. baastigeeda ama mid la soo dhaafayna waxay noqonaysaa the crust of the bread was very thick. qof baa wuxuu ku yidhi how was the breakfast. ka waran quraacdii saaka. xaran kartaa marka the crust of the bread was very thick. inta sare ee rootiga ayaa aad u adkayd. waad oran kartaa the farm beerta is very far. aad ayay u fog tahay. beerta aad ayay u fog tahay. hadday hore u fogeyd laakiin hadda ayaan fogeydna maxay noqonaysaa the farm beerta was very far. aad ayay u fogeyd. The farm beerta was very far. aad ayay u fogeyd. marka jumladahaas haddaad dib u noqotid waxaa weeye kuwo wakhtigoodii jooga oo simple present ah ayaad waxaad ka dhigtay past tense. waana jumlado waxaan ku dhex jirnaa casharkii qaybtii iyadu aanu kaga hadlaynay waxa loo yaqaano simple pastiga. waa intaanu ka kulmi doono casharkan ku xiga waa anigoo ah Axmed waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.